السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلة إيا برنامج كيني تحناها أها أنو كساميني سلسلة دعان كاهيد أبوانين الصومالي أغو ميسان كعسلاء أي فود اسكو دارين سلسلة داس ومقع عيدا لأورنجري ديلي أيا مانتا وحا إنيسو قدبينيناه مانصدي سقالات سلسلة داس هذا مانصد سقالات ومقع عيدا ليراهدو وان أغنهي دنبيلها ayaa waxaa tiriyay Cabdi Yuusuf Xasan oo lagu naynaas jiray Cabdi Dhuux haddaba haddaan wax yar ka xusno taariikh nololeedka abwaan Cabdi Dhuux ayaa waxa uu ka mid ahaa hoballadii caanka ah ee kooxda Waaberi wuxuuna ku dhashay Feerfeer oo ka tirsan Beledweyne sanadkii 1943 maasadiisan waan oglahay dambiilaha cidna xigan maayo laakiin si guud ayuu wuxuu u tilmaamayaa in qabyaaladii wali nooshahay waxyeelo badan gaarsiisay cadaaladda iyo sinaanta bulshada wuxuu sheegayaa inay jiraan rag dambiilayaal oo waliba sii dalacaya laakiin uusan magacaabin arrintiisuna waa falaarta cirka loo ganay nin walba uu filo bulshada wuxuu ugu baaqayaa Cabdi Dhuux midnimo horumar iyo difaaca dalka haddaba maansadiisii oo magaceeda la yiraahdo waan ognahay dambiilaha waxay ku bilaabanaysaa sida tan soo socota deelay rag baa furay murti weyn ku daabacay oo dux iyo aragti leh waana taa isdaba taal doodana la qaybsaday ninba door ha qaatee anigiyo dareenkay shax haddii la wada dego tabbaa la isku dilayaa gudban darar la daristahay irmaan la isku sii dayn degdegaama faa'iido in ildoofay laga badi arday iyo dadaalkii duruus iyo xusuusteed dawlis iyo wadaantii darajiyo xilqaadkeed dacwo iyo garsoorkeed doonidaba badweynta haddii dakhalku kaga jabo xaalkeedu waa degis bulsho kala diqooto isku duubni weydaa duugeedu waa halis waxaan uga dan leeyahay dulli inuu qabiil yahay danta guud u daran yahay dib u dhaca u sabab yahay duumo iyo cudur yahay qarannimo dilkeed yahay daahnagama saarno dulkay dhex taallaa dibindaabyo hoosiyo daqar dhiig guddo ayiyo dabin laysu qooliyo mid waliba mid inuu dilo ayay darajo moodaan gumaystihii jartaa degay dibaddana ka joogsaday dabadhilif adeegsaday darxumadiyo hoogga wuu ku diirsanayaa kafan loo diyaarshiyo luxud lagu dabooliyo qabiil waa la duugana dood yar baan ka leeyahay ma daxsoona mana dhiman sida daad rogmanayo daaha soo jabsaday buu weli dulundulceeyaa laba wada dib jir ahaa sidii buu daruuraha mid dushooda saaraa doobiga u buuxshaa miidda u durduurtaa midna daawanaya darbiyada ka reemaa gaajadu ku dubataa arrin dalab leh baa jira xaq la duudsiyaa badan qaar wax duminayaa jira qaar la duuban baa badan iyagoo dambiile ah qaar dallacaya baa jira ummad yahay wax kuu daran iyo waxa dantaada ah ha isku darayna kala daa qalbigaaga daahiri damiirkeenna weheshada dawga toosan wada mara dawankana isku afgaro dacar malab huwanaysiyo dambas dhuxuli hoostaal cidi kuma dawowdee nin walbow damiirka dablayda iyo waranlaha ayamaa dembiga qaba xaqa diirka ka caddee mur hadduu ka daran yahay waa xadiis da'weyn oo noogu deeqay nebigii waxaan uga dan leeyahay dustus ha iska yara jiro waa dunida xaalkeed dembi ma laha waranluhu ha yeeshee dabbaa kacay ninkii damin lahaabaa baatrool ku sii daray dariiqii la mari jiray ninka daadshay miinada muxuu uga dan leeyahay doraad hadalkii uu yidhi nin dafiray muxuu yahay ninkii dheri dab saaraa karka muxuu u diidaa nin hadduu durbaantumo shanqadhiisu durugtaye saw ilaaq ma daalibin
haddii ceel dad badan yahay duuyana u horan tahay miilada nin diidaa dulucdiisu waa maxay diiday haah miyay noqon duhur subax miyuu noqon nacas diric miyuu noqon waxaan uga dan leeyahay diinkaba nin fuulaa degdeg meelfa kuma tago ninka weel dalooshamay ceel darsaday ma oon bixin waxaan dooda uga baxay oo iga dardaaran ah weligiiba haysdado xariir hays dul saaroo hayska dhigo nin daacad ah waan ogahay dambiilaha bulshooy ul iyo diir noqo dalka horumarkiisiyo daafaca u taagnow carab dalab leh yeelkii isku didiya ha u baqan daabka gudinta u adkee dayaxana u dheelmada haddaba intaa ha inoo joogto maansadii 9aad ee silsiladaas caanka ee deelley oo noo tirinayay abwaan cabdidhuux isagoo si guud bulshada ugu baaqayay inay midnimo muujiyaan dalka horumariyaan dalkoodana ka difaacaan qabyaaladda oo uu tilmaamay inay weli nooshahay rag badanna ku dallacayaan haddaba intaanu maansada 10aad ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo